الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار. عباد الله ولا ليال ودنكيني قيب كميدا dhib ka taagan, dhibta iyo colaadaha ka taagan gobolada bariga, gaar ahaan agagaarka gobolka Sool iyo agagaarka magaalada Laascaanood waynu arkaynaa iyo diriirta ka socota. dhiig muslim baa daadanaya, dhinac kasta qof muslima baa ka soo jeeda. dhiigga muslimka ilaa badbaadiyana camalka aynu sheegnay ee heshiisiinta ah kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay. nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu adkeeyay daadinta dhiigga muslimka ah, shariicadeennuna meel adag ayay dhigtay. sidaa daraadeed afar arrimood ayaynu u baahanahay. kow, dadka culimada ah ee shariicada lagu maaragtay aqoonta u leh ee dadku diinta iyo wacdiga u daba fadhiyaan, erayada ay odhanayaan inay aad iyo aad u ilaaliyaan. maxaa yeelay iyagu waxay aqoon u leeyihiin shariicadii ilaahay, dadka caamada ee wax magaratada la mid maaha. sidaa daraadeed waxaan ugu baaqayaa dadka culimada ee manaabirta saaran ee jihaad ku sheegaya dadka dagaalka dadka muslimiinta dhex maraya ee ku kicinaya shacabka, ku kicinaya waxa weeye markaa madaxdooda iyo dawladooda ku kicinaya ee qofka ku dhintaa waa shahiid la ilaahay inay ka baqaan subxaanahu wa tacaala, shariicadana aanay ka been abuuran. qof muslima dhiiggiisa daadintiisu shahaado maaha, wax lagu shahaado qaato qof muslimi maaha. arrintaasi waxay dabada ku haysaa takfiir iyo gaalaysiin qofka muslimka ah dhiiggiisa lagu xalaashanayo, waana ficil aad iyo aad u xun. rasuulku sala allahu aleyh wasalamna aad buu uga digay caqiidada takfiirinta dadka muslimiinta la gaalaysiiyo. waxaan arkaynaa qoraalada qaar, hadallada qaar maamulka murtadka ah ama maamulka riddada, macnaha dhiiggiisu waa xalaal weeye mar hadduu qofku ridoobo. wada nebigu wuxu uhi man badala diinahu faqtuluuh, ninka diintiisa bedela dila. marka qofku hadduu diintii ka baxo waa dhiiggiisu waa xalaal weeye, waa in la daadiyo wey. war dadka culimadii ilaahay ha ka baqaan subxaanahu wa tacaala. culimada towbadoodu way ka adag tahay towbadda dadka caamada ah. towbadoodu shuruud adag bay leedahay. waxaa ka mid ah inay sidii dadka caadiga uga noqdaan camalka xun ay ku jiraan. waxa iyaga u dheer xaqay qariyeen inay dadka u caddeeyaan, waxay kharibeenna dib u hagaajiyaan. towbadda qofka muslimka ee caadiga ah labadaasa iyaga u dheer, waana ballan ilaahay uu la galay dadka culimada ah. war ballanka ha la oofiyo, ilaahay ha laga baqa subxaanahu wa tacaala. maanta waa adduunyo, beri aakhiraad tegaysaa. inaad noolaan ilaahay baa og, inaad sii joogi ilaahay baa og. ilaahay hortiisaad istaagaysaa adigoo keligaa ah. ilaahay baa keligaa ku xisaabinaya oo keligaa kula xisaabtamaya. maa minkum min axad ilaa wasayukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu tarjumaan baa nabigu uri sal alla alay wasalam. mid idinka midii ma jiro ilaa qof kastoo idinka midii ilaahay buu hor istaagaya. rabbigii baa la hadlaya isagoo ilaahay iyo isaga cid u kala tarjumaanaysaa aanay jirin. qabiilku anfici maayo, kooxdaadu ku anfici mayso, qaraabadaadu ku anfici mayso, iska dhaafe ubadkaaga iyo ooridaadu xataa ku anfici maayaan. markaa ruux walowba aakhiradaada u turo. weliba culimmadu ilaahay ha ka baqaan subxaanahu wa tacaala, oo wax dadka wanaajinaya adduunkooda iyo aakhiradooda mooyaane wax ummadda adduunkooda iyo aakhiradooda kala irdhaynaya oo xumaynaya yaanay ka shaqaynin. qodobka labaad een u baahanay waxay tahay dadka waxgaradka ah ee salaadiin leh, ee garaada leh, ee cuqaal leh, ee waxa weeye culamo leh, ee acyaanka leh iyo dad hurmoodoo kale leh inay arrinkaa ku guntadaan oy u kacaan. maxaa yeele fitnada qof quraa bilaabi karaa, laakiin in qof qurii damiyaa way adkaanaysaa. kii bilaabi xataa ma damin karo. fitnaduna ma laha
ملك بلابنتي leedahay meel ay ku dhamaato lama garanayo arrinka in loo kaco oo islaaxa iyo heshiisiinta iyo nabadaynta aad iyo aad looga shaqeeyo oo dhiiga qubanaya loo guntado oo la joojiyo nin kasta oo wax ka tari kara inuu guntado qodobka saddexaad dadka dhibaatadu soo gaadhay colaadaha ku barakacaya colaada waa lagu barakacaa dugaaga ka barakaca oo ka qaxa meesha colaada ka dhacdo dadka ka qaxa in dadka ku barakacay ku dhibaatooday de loo gurmado oo wixii cunno la siin karo wixii dhar la gaarsiin karo wixii maartay wax kale la gaarsiin karo dadka walaaluhu inay wanaaga iyo khayrka gacmaha isku qabsadaan oo nacaybka iyo colaada laga fogaado arrinka afraad propagandada in la iska ilaaliyo iyo waxyaalaha dadka qaar adduunyo ay ku rabaan ama ba aanay eegayn waxa ka dhalanaya marka propagandooyinka iyo been abuuradka umada lagu kala dilayo umada dhan baa ku qaxi kara propagandada hebel baa halka lagu dilay hebel baa guriga lagu garaacay hebel baa sidan la yiri fitanka dhex wareegaya baraha bulshada waynu arkaynaa war qof walba dhagahaaga iyo indhahaaga ilaasho qalinkaaga iyo gacantaada iyo qowlkaaga ilaasho waxa weeye adduunyada waad ka tagaysaa socotaad ku tahay martibaad ku tahay marti edab la noqo marti edab leh noqo way arabtu tiraada yaa qariib kun adiib warayninka martida edab yeelo war adduunyada edab ku joog oo ummadaada muslimiinta edab ku dhex joog oo ilaahay edab kula dhaqan oo rasuulkiisa edab kula dhaqan oo muuminiinta edab kula dhaqan oo qof dhowrsoon ummadana dhowray naftiisana dhowray aakhiradiisa ilaaliyay aakhirada dadka walaalihiina ilaaliyay aad iyo aad marka uga shaqeey oo noqo mid dadka anfacan noqo mid dadka dhibaha noqonin sida daraadeed walaalayaal arimaha in la dhaylasada ma aha waa inaan u guntanaa in dhiigga muslimiinta daadanaya uu joogsado dadka madaxda ana dulqaadka aad iyo aad ugu dadaalaan intay wax wanaajin karaan ha wanaajiyaan shicibkuna dad khayrka iyo wanaaga u dhaga nugul ha noqdaan sharka iyo fitnada dadka fog ha noqdaan waxa weeye sida aydaanu garanayno colaadu waxay burburiso mooyee waxba ma soo kordhiso waxay burburiso mooyee waxba ma soo kordhiso qofkii wax tawda qofku wax waa taban karaa shaydaanku wax waa qurxin karaa uu ku saxsanaan karaa waanu ku qaldanaan karaa laakiin inuu dhiig muslim ku daadiyo yaanu waxa weeye markaas aanay ku kalifin ilaahay waxaan ka baryayaa waxaynu suganaa faral kamida faraladiisi waxaynu ku sugannahay guri kamida guryihiisa ilaahay waxaan ka baryayaa anigoo ku baryaya magacyadiisa wanaagsan iyo tilmaamihiisa sareeya ilaahay inuu colaada inaga qaboojiyo ilaahay inuu colaada inaga qaboojiyo ilaahay inuu dhiiggeena dhowro quluubteena isu soo jeediyo midnimadeena iyo isku duubnideena ilaahay inuu ina garansiiyo danteena aakhiro iyo teena adduunyaba allah ina garansiiyo dad khayrka furayaalo ah sharkana quful oo allah inaga dhigo dadka wanaaga isfaraxumaana iska reeba allah inaga dhigo fitnadu aqliga isuurisa allah aqliga inoo soo celiyo ilaahay garashada inoo soo celiyo dareenka walaalnimo iyo muslimnimo allah inoo soo celiyo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira